qaar ka mid ah cuqaasha waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka magaalada Buuhoodle ayaa maanta kulan ay ku yeesheen gudaha magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxay kaga hadleen dhacdadii naxdinta leh ee jimcihii la soo dhaafay ka dhacday deegaanka Carraweyn ee gobolka Cayn taas oo sababtay dhimashada laba qof oo reer guuraa iyo sidoo kale dhaawaca saddex kale waxaana cuqaasha waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee maanta kulankani ku yeeshay magaalada Buuhoodle ay ugu tacsiin kulankoodani dadkii wax ku yeeloobay dhacdadaasi oo ay mas'uuliyadooda dusha uga tuureen maamulka خاتوم يهجاميها مامل كخاتوم دكتور علي خليف كريدي يولب سيدو كلا قدوميها برلمان كمامل كخاتوم محمود شيخ عمر حسن هذا بقى عقاش وحجرت كيو ضياش دقن كمجرد أبوه ولا كلن كاسكالي أي هذا لودودي وحكم لها حالي سوي دعدا كدعدي عروين دعدا داس ولو أركي لا أركي دعدا فارقون أيال بكر السوي دعدا عروين كدعدي مركب كوبات دعدا داس هو دعدا فارقون oo aan lagu talagelin oo dadkan deegaanku ay nadiif ka yihiin waxaanu marka koobaad u tacsiyadeynaa dadka deegaanka lagu waxyeeleeyay wixii dhintay waxaanu Ilaahay u baryanaa inuu naxariisto wixii dhaawacmayna waxaanu Ilaahay u weydiinanaa inuu boogadhayo waxaan leenahay dhibka sidaynu ognahay dhib baa meesha ka dhacay dhibka meesha ka dhacday waxaa mas'uuliyadeeda qaadaya oo Ilaahayna kala xisaabtamaya annana aanu ku ognahay maamulka خاتومه أو مسؤول كياي علي خليف كرايد يو مدني صلي وعروين كان دعي وير العد أو ظهر على ظهر هشكي دعي وير كاسوحها وير القرشيسن والراجي وإن بدل لقش غيري وير كاسوحو دبت شوقي جوجوشي نبض بيروه أي دكتين عذر اللي يقامر كسر بحي وحاول كاسي يدبت شوقي وضياشي مالتي دوين ريربو هذا كوب باقين بتجليه وحاول كاسي يدبت شوقي أفر يطبن حضنات وأنا بوان كمل أهاي وبيش عروي مالتي وانا كل عيسى بحيري كوك الله si bumbala iyo qaraxa lagu xabaalay la dhaxdigay dadka ay u saaraan 14 yaga nin baa la beegsanay markii aanu magaalada ka sii maqlayn saacad iyo bar ilaa 2 saacadood baa weerarkan laga soo daba diray wuxuuna mushinka fuliyay annaga oo ku sugan Carraweyn oo dadkii reer Carraweyn ama kuwii soo guuray ha noqdeen ama kuwii deegaanka u dhashay ha noqdeen iyo ergadayadiiba aan wada fadhino بمشي كان فري مركا ومشي نسجار الله بيكسريو السمرة الغاشة لما ودينته نقربوتك يرنكي وحقوية مصلحة شعب ووين الله بيكسريو وإن بلا لقرشين يي وهراء بعضي وفلنتي سيكو بعضي كل على عروين أنت مركا كجدبه وحن عم بارينا dadkii ka dambeeyay weerarkaas weerarka waxa ka dambeeyay Ali Khaliif Galayd faal ay tamay afka lagama dhowraalay saddex casho ka hor buu tagay magaalada Carraweyn intii aan maalintii weerarku dhacay saddex casho ka hor waxa uu ku soo aasay bumbada ka qaraxday waxaad ogtihiin ma daliil ala dalika waxa daliil u ah wuxuu ku hadlay oo saxaafadihii u dambeeyay khudbadihiisa kamid ahayd ilaa beeluhu wada deganaan doonin in dhiig badan quban doono in ma tadoox dhici doono waxaanu tacsiyadeynaa dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay Carraweyn iyo kuwii dhibka
loo soo dhaweeyay labadaba waa tacsiyadeynayna wixii dhintay Allah u naxariisto wixii dhaawacana Allah bogsiiyo beesha lagu soo hoyay qasaaraha iyo dhibkaana Allah u fududeeyo dhamaantayo waxaan ku baaqaynaa nabadgelyo ku baaqaynaa cidii nabadgelyada jabinaysana Ilaahay naga qabo Ilaahay ku cidii nabadgelyada jabinaysana naga qabo waxaa meesha ka dhacay foolxumo weyn dadkii wadayaalay ee walaalaha ahaa ee wax wada cunayay baa dhagar la dhex dhigay cidii dhagartaa dhex dhigtay ayaa mas'uuliyadda qaadaysa علي خليف wuxuu leeyahay tolkii wuxuu joogaa kala baydhiyo laascaanood inta ka sareysa aliin hadduu alla yahay cali khaliif naga qabsada hadduu meel wax ka taray halkaa wax ka taro hadduu meel wax ka taray guriga iyaga ayuu nagaga soo noqon annagaa leh nabadiisa annagaa leh waxqabadkiisa annagaa leh allihii hadduu alla yahay yuusan nagu soo noqon aad iyo aad baan u xunahay ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii dhintaan inuu ilaahay jannadii firdawsi geeyo waxa dhaawacana inuu Allah ka kiciyo baan ilaahay ka baryaynaa midda labaad waxaanu cambaaraynaynaa falkaa foosha xun ee halkaa ka dhacay iyo ciddii ka dambeysay waanu cambaaraynaynaa haddaan nahay waxgaradka gobolka Cayn waxa weeyaan falkaasna sida aad maqlayseen waxa weeyaan waxaa geystay dhibkaas oo mas'uul adduun iyo aakhiraba ka Cali Khaliif iyo maamulkiisa cid la socota dadkii dhintay Allah u naxariisto kuwii dhaawacmay Allah caafiyo dhammaan deegaanka iyo dadka ay ka soo jeedaanna waxaan ugu tacsiyeynaynaa in falkaasi sidaa la tilmaamay uu yahay Buuhoodle iyo waxgaradkuna wax shaqaayo ku lahayd waxaanu tilmaan ka bixinaynaa sidaa inay ku caddahay xaqiiqada dhabta ah ee la tilmaamayo oo ugaashu tilmaantay waxaan soo jeedinayaa inaynu u midowno inaynu talanno inaynu ku soo celinno meeshiisii inaynu sharwadayaasha odayaasha waxay ballan qaadeen in hawl adag u taallo ayna gelayaan guntigana ay u geejisanayaan hawshaa inaad gacan nagu siisaan Abdiraxmaan Jaamac Cabdiraxmaan Wadani